Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo habeenkii xalay dood cilmiyeed ku saabsan dhaqanka iyo dimuqraadiyadda la wadaagay boqolaal ka mid ah ardayda iyo bulshada reer Gabiley ayaa waxa uu markii ugu horeysay ka hadlay xiriirka u dhaxeeya xukuumadda Soomaaliland ee garwadeenka u yahay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland. Professorkii dawladii iyo ummadii maxaan ku raahayay doorashadii la galay qayb libaax ka soo qaatay ma mucaarid buu ninkii noqday in laga yaabo in ay idin soo gaar taasan doonaya caawa in yara macdeeyo horta anigu mucaarid ma ihi koow taayna isla fahmo laakiin kelmad baa jirta af Ingiriisiga la yiraahdo critic waxa weeye qof academica oo goor walba shaqadiisu amba shaqadeedu ay tahay inuu baandeeyada nolosha lagu nool yahay waqtiga su'aalaha taagan in la baandeeyo laakiin qofka baandeeyay laba midun buu noqdaa negative critic taasa mucaaridku kaaway waxba la wadaa waxay doontaa noqotay goor walba qofkaasi uu ka soo horjeedo taasi waa mucaaridka kelmadda opposition la yiraahdo Ingiriisiga way anigu kaamay anu waxaan ahay ka labaad nooca labaad oo ah positive ka hore waa positive critic cidii doonto wadanka ha xukunto dawladii doonto ha joogto xisbigii doona ha haysto taariikh badan iyo dadkii waaweynaa laakiin taariikhda inaad ka soo saarto wax macaan oo hufan oo dadka siinaya ididila cusub sidoo kale Professor Axmed Ismaaciil Samatar waxa uu ka hadlay heshiis ay wada galeen xukuumadii hore ee uu hogaaminayay Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo markaan wadanka iimanayay madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud iyo dawladiisii ay dhahan anu is aragno anu sheekaysanay Mareykan waftiisa soo diran ku sheekaysanay deetanaanu nidi in wadankii bal eego oo dadkii la soo sheekaysato laga yaabo in ay isbedelaan waxaan ku yiri waan ogolahay on 3 conditions saddex shuruudood waa inaan imika ku heshiin maxay yihiin saddexdaas meeshan toonaan tagi oo layma oran karo halka ma tagi karaysid kala bayd ma tagi karaysid laakiin waa tagi hadaa doonayso maxaan ku raacay caynaba waa tagi laakiin kala bayd ma tagi no meeshan doono wadanka inaan tagi 2 talabaad cidaan doono inaan la kulmi karo la sheekaysan karo amba ha noqdaan kun qof waana dhacday amba ha noqoto qof oo la oran karin hebel laayana lama hadli kartid hebelna lama hadli kartid saddexaadna meeshan doono inaan ka hadli topican doono inaan ka hadli laakiin xurriyadaasi inaanan ogolaanayn in la taabto inta hadaynu ku heshiino waxa kale way dhantahay inta hadaynan ku heshiina waad mahadsantiina casuumadu hayno idin laabnaato madaxweynaha intii la socotay waraaqayan isweydaarsanay waan isla garanay waxa yiraahdeen good waad markaad garanaysana wadankani xagga dimuqraadinimada inuu soo bislaanayo wad arkaysa Farxaan Cabdi Ciise Honkebel TV gobolka Gabiley.